كهر مريض الكي هي روح دلي نظامكي هايبدي ورقة ويا كوكوبا ورتيس حشيشك أورا حقاتي دنكاga shicibkaygo habbiyo kala shaqeeya nadaafada oo hela waa guul guud ahaan caasimadda magaalada Hargeysa waxaa si weyn looga dareemayaa kor u qaadida bilicda iyo hirgelinta wadooyinka iyo sidoo kale furitaanka kuwa xidhan halkani waa degmada Maxamuud Haybe oo wada bannayn ay saaka ka bilaabantay durbo waxaa muuqda firfircoonida iyo dardarta shaqo ee ay horseedka u noqdeen dhalinyaradii loo soo magacaabay degmadani maxamed mustafa bidaan xaaji daahir gudoomiye ku-xigeenka degmada Maxamuud Haybe iyo waliba maxamed ismaaciil cabdi xogeyaha degmadaasi bulshada xaafadani waxay si weyn ugu riyaaqeen bannaynta wadadan iyo in maamulkani uu yahay kii ugu horeeyay ee u yimaada waxaan salaamaynaa dawladdan hoose iyo shaqaalaheega degmada Maxamuud Haybe shaqaday maanta halkan ka wadaan aad baan ugu mahad celinaynaa Allah ha barakeeyo dawladda hoose gabigeedaba Ilaahay ha barakeeyo dawladdan imika jirta tan imika jirtay cusub ee maayirka caasimadda maayir Axmed maayir Cabdikariin Axmed mooge hogaaminayo Ilaahay ha barakeeyo waa dawladdii anagu dawlad hoose oo shaqaynaysa oo maanu aragoo socota to aqlada gargaraacdo lacagta qaadata mooyaano albaabada la baxde horta dee intan imika ay shaqaynaysay waa taa halkaa gidaaradaasi tuugta habeenkii soo gelaysay oo magaalada waxa jooga oo dhan habeenkii kuyuubay u soo gelayeen kaadidooda iyo qashinkooga tuugtaa ku soo dhabarayso aqlada uga soo dhacaysay wax alla waxa bac iyo caaga dabayli soo qaadoo dhan baa hoostaga soo gelayay waa taasoo maanta waa nadiif waan u ducaynaynaa meel kastuu joogo bari ilaa galbeed anu waxaan ahay xaafadaha waxaan galaa 150 halkana Maxamuud Haybaan jooga sidoo uga shaqeeyo iyo sidoo u yahay waa waxaan arkayna waanu doorano dawaanu shaqaynayna waxaan ma hadnaqaynaa Ilaahay marka labaad waxaan ma hadnaqaynaa maamulka dawladda oo gaar ahaan waaxda Maxamuud Haybe meelaha madowga kale habeenkii marka aan dayuxu jirin iyo iftiinku oo meelihii ay tuugtu ku gabanayeen meelaha dhirtu xireen meelaha ay garanwaagan xune deegaanka qarribaya uu ka baxay ay naga banay aad bay ugu mahadsanyiin haddaanu nahay xaafadan star area calaamada horta alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ilaahay wuxuu noo soo diray maayirkayagii dawladdii hoose marka aad baan ugu faraxsanahay waana u ducaynaynaa laakiin waxaanu ka codsanaynaa maayirka iyo dawladda hoose waxaanu ka codsanaynaa inayna naga noqonin oo ay naga laaban garanwaaga naga dhameeyaan dhirta naga dhameeyaan iyo xashiishkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana u ducaynaynaa xaafadayadu aad bay u dulmanayd maayir hore soo ma gelin dawlad hoose maanaan aragoo ka horeysay tan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyada iyo maxaan ku idhahdaa ay howlwadeenada shaqaynaya oo dhan hore waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dawladda noo soo diray maanta waxa la naga hagaajinayaa garanwaayadan iyo xashiishkan isqabsaday oo habeenkii dhibaato badan naga haysato oo tuugta habeenkii loogu soo dhuumato waxaan u mahad celinaynaa maayirkayaga Ilaahay ha noo daayo baan leenahay maayir baa noo dhashay waxa noo socota wadooyinkii waana laga xaarayaa iyo xashiishkii wadooyinkii baa naloo qurxinayaa dhirtii garanwaayadii iyo qashinkii isqabsaday ayaana laga xaarayaa maanta aad iyo aad bay u mahadsantahay dawladda hoose siiba qaybta Maxamuud Haybe waa maalintii koobaad aan xaafadan calaamadeen maanta jooga ku arko shaqaalihii dawladda hoose oo maanta dib u habayn iyo qurxin wada aad iyo aad baan u salaamayaa maayirka cusub axmed cawaale raaga gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe maxamed mustafa bidaan xaaji daahir gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo waliba maxamed ismaaciil cabdi xogeyaha degmadaasi oo halkaa ka hadlay waxa ay carabka ku adkeeyeen
in ay u heelan yihiin hagaajinta iyo qurxinta degmadooda. waxaannu diyaar u nahay oonu ku guda jirnaa qayb ka mida waajibaadkayaga shaqo ee aannu leenahay maalinlaha maanta waxaannu ku guda jirnaa waddo ka mida waddooyinka muhiimka ee degmada maxamuud haybe taasi oo ah xaafadda sheekh shukri agagaarka star walilaahi alxamdu hawshii wanaagsan bay noogu socotaa. ilaahay baa mahadoo dhan iskale saaka waa maalin weyn oo qiimo badan oonu fulinayno mid ka mid ah shaqooyinkii degmada maxamuud haybe ay dadka u haysay shaqadii ugu mudnayd oo ahaa in waddooyinka loo furo xaafadaha. maanta waxaanu joognaa xaafadan star area oonu ka furayno waddo dheer oo garawaaya ay ka xidhan oo dadka xaafadanna ay baahi weyn u qabeen isla markaana xagga amnigana ku ahayd maaragtay xaalad oo tuugta iyo ay u gelayeen ciyaalka moobilada qaadaa. waddadaasaan hawsheedii maanta bilownay waxay qayb ka tahay howlgallo dib loogu nidaaminayo degmada maxamuud haybe oo iska kaashanayaan dadweynaha xaafadaha kala duwan iyo maamulkoodu. dadweynaha anaa fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay waddadan iyo waddooyinka xidhanba waxaa lagu furayaa waa cashuurtiinnii cashuurta soo bixiya markaa cashuur bixiyaal wanaagsan noqotaan waxaa heli doontaan dhammaan adeegyada aasaasiga oo dhan hadday tahay caafimaadka waxbarashada waddooyinka iyo wixii la midka ah. idinkana waxaa laydinka rabaa inay isu soo abaabushaan oo xaafad isu soo abaabushaan oo noo keentaan waddooyinka xidhan ee aa u baahan tihiin inaanu idiin furno. annaguna dawlada hoose ahaan iyo degma ahaanba waxaan ballan qaadaynaa inaanu furi doonno waddooyinkaas oo aanu xilliga ugu macquulsan markaaynu isla eegno aanu idiin furi doonno. degmada maxamuud haybe oo shaqo weyni ka socoto gaar ahaan xaafadda sheekh shukri oo saakaannu ka wadno wadda bannayn ay aad ugu baahnayd xaafaddan sheekh shukri gaar ahaan star dabadeeda cabashooyin nooga yimiday dumarka sharafta leh ee guddida xaafadda sheekh shukri oo aad uga cawday garanwaaga waddada xidhay oo waddooyinkii cidhiidhi ka dhigay iyo tuugtoo habeenkii ugu soo gabanaysa iyo kuwa yarare moobilada qaada. howlgalkaas saaka aanu samaynay oo aanu waxa weeyaan wadi doonno ilaa wiigaga soo socda. waxaa noo qorshaysan ilaa dhowr iyo 10 waddo inaannu ka bannayno degmada maxamuud haybe xaafadeeda kala duwan. saaka aad baan waxa weeyaan ugu faraxsanahay sharaf weynna way noo tahay inaannu u shaqayno bulshada ku dhaqan degmada maxamuud haybe. waxaa kaloo aan aad iyagana u boorinayaa oon uga faa'iidaysan in ay cashuurta soo bixiyaan maadaama oo horumarkii iyo wadda bannayntii ay ugu timiday guryahay degganaayeen cashuurtii laga qaadayeyna dashboardka guud ee dawladda hoose ay ka muuqato. dadka deggan xaafaddani waxay howlwadeennada ku jiray wadda bannaynta ay la barbartaagnaayeen shaah sharaab iyo weliba dhiirigelin. kasbashada qulubta shacab u heelan waxqabad waa dadaallada ka muuqda dawladda hoose ee caasimadda magaalada hargeysa. maxamed cabdi qalinleh muuqbaahiyaha bulsho hargeysa.